waxaan rabaa inaan ka jawaabo weedhii ahayd heeko ka soo yeedhay ee ay yiraahdeen 10kii bilood u dambeeyay ninkani wax lacag ma bixin halkan waxa aan ku soo bandhigayaa tani waa ku iibsooyinkii saadii dahabtii iyo lacag waxa weeye kuba iyagu shaambadeeyeen 10kii bilood u dambeeyay waxaan ogaanay شو ماشي أنا كنا ناحي واي شو دارات لسان لها بنوي بدسان لها شو ماشي أنا كنا ناحي واي ويديك مرتين طبعا كن دور العقدو أي رجعني عن أشوبي رجي شاكتي شركة دي شاكتين عشان كنا دور يقولوا يهين أي يري طبعا كي بلادو دنبي وحي نكاس العقل ما هيو طبعا كي بلادو دنبي طبعا كن بانو حري تاسو وفرين أودريو ريبرو يرهل سوماليلاند أنو شيء معميل كأنه كيرجريان كوتادو معاه هاي ليه هاي إن الشركات طبعا كون أودرو حريصي أيلي إنشان كون أودرو بانكولا نهاي واللي بنا طبعا كي بلادو دنبي وحل عجمي بحين وحنا كنسوا بندقيا تلفون كي شخص على عجي كبحي وحنا كنسوا بندقيا لبضع ذهبت يساده مهرده ku iibsadeeda lacag ka baxay waan ogahay reebro way ogaayeen inaan run ka sheegin hadalkooda laakiin waxaan maanta u soo bandhigayaa cadeymahan dadkii reebro yara shakiyay baan u soo bandhigayaa jawaabtuna iyo markhaatiguna ninkii u hadlay shirkadda heeko ayaa isaga markhaati isugu filan waraaqahan oo midmida si taxana baan midiyaha soo dhigi doonaa 10,000 lacag ku dhow baan u xareynay heeko hadda nahay kaabuli dadka reer Burco ama family-gayga ama asxaabtayda yara shakisan qaarwiilada ma fiisa iibsatay oo yaani business-kan ma baabiinaysa ugu waxaan u sheegayaa in waxa la dhaho xoriyadu marba la weydiiyay Malcolm X what is the price of freedom waa maxay qiimaha ay ku joogtaa ama qiimaha ay ku baxayso waxa la dhaho xoriyadu wuxuu ku jawaabay the price of freedom is death and if you are not pay that price then don't use that word in your vocabulary haddii aanad qiimaha bixinin oo dhimasho ah ha isticmaalin ama yaani ku jirin kelmadda xoriyad ama freedom vocabulary-gaaga qaamuskaaga marka waxaan u sheegayaa reebro mar la weydiiyay odageeni weynaaye reer South Africa Nelson Mandela isaga laftiisa xoriyadda la weydiiyay wuxuu yiri xoriyadda waxa loo maraa wadadeeda loo maro waa jeel odaga la xidhay garanaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa price inaan suuqa heeko furno reebro reer Somaliland aqoonyahankow reer Burco inuu inoo furmo suuqani sunna ma aha fartul ayn waana xoriyad aan u dagaalamano and we can pay any price and any value waana bixinina price kaste oo ay ma garanaysaa ku baxayso ama qiimo kasta ku kacayso aan bixinina in suuqa leerku ee kootada ah aanay heeko kaliya ku ahaan waxaan kale u sheegayaa reer Burco taageero weyn bay muujiyeen bulshada adiga ay boqoraday haddaan ahay wiil burkulul bulshada adiga iska leh bareeraha adaa ifray way nooyo hogaaminta liidka aan qaatay suuqa kootada ah ee korontada ee Burco biidnillaahi kariim ma mawla inaga oo waxa way furanay shirkado kale ku casuunay kuwii kale ee waxa weeye lagu lahaa khasab ku biira heeko oo xor ah saasay noo tahay reer Burco maantana maalintii u dambeysay heeko iyo kaabuli ay wada hadlayaan iyagoo oo laba ah shirkadood kaabuli waa xor solarkiisu saaranaya mishiinadiisu sheeganaya dib dambana heeko uga adeegmayso wixii maanta ka dambeeya waxay noqonaysaa Burco shacabkeeda dhaqaalahiyankeeda ganacsigeeda maatadeeda dhalinyaradeeda Burco isku duuban dal iyo dibad iyo heeko iyo suuqa kootada ah saasanad ku hogaaminaya aniga leer ka qaatay
ilaa ay iilka ila gelayso sidaan sheegay I can pay the any price